مسؤولين كترسن ماملك كونفور قلبيت صوماليا يا كقيب قلي مناسبة ويسكو شاعينيي مشرح مدحتنمada ee Soomaaliya sanadkan 2016 مشرح محمد عبد الرزاق warbixinta waxa baydhabo ka soo diray wariyahena gobolka Baay Maxamed Cabdicasiis Salaad iyadoo muddooyinkii u dambeeyay loolan adag iyo sidoo kale ay soo ifbaxayeen musharaxiin u taagan qabashada xilka madaxtinimada ee Soomaaliya sanadka 2016 ayaa maanta magaalada Baydhabo xarunta gobolka Baay waxa lagu soo dhaweeyay Maxamed Cabdi Rasaaq oo kamid ah musharaxiinta ku dhawaaqay inay u taagan yihiin qabashada xilka madaxweynenimada ee Soomaaliya 2016 musharax Maxamed Cabdi Rasaaq xaflad lagu soo dhaweynayay sidoo kalena lagu taageeray ayaa maanta waxa loogu dhigay hotel Bakene magaalada Baydhabo taasi ay ka qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed maamulka degmada Baydhabo ee kan gobolka Baay waxaana mas'uuliyiintii dhammaan halkaasi ka hadashay ay ku dheeraadeen taariikhda uu leeyahay musharax Maxamed Cabdi Rasaaq iyo sidoo uu haboon yahay inuu qabto hoggaanka ugu sareeya dalka in badan maarin Soomaaliya lagu qasow wala badan maarin ku dhax shaqeeyay hay'adaha humanitarianka dadaal badan maarna hore aan galisi maarna mudan maarna Soomaaliya samata bixifad ka humanitarian ahaan geekana diyaarana inuu dadaalka si bileeri waana diyaarana inuu geeka musharax annagada bulshooyinta Soomaaliya inuu samadala oo annagada madaxweynaha mustaqbalka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maylana Baydhabo ka dhawaw beerbeeda waa dhawaw runtii walbadan ku kasee dhaqankii iyo meel raayis taariikhda reer Baydhabo in mudana ka shaqeeyay dawladda kumeelgaarka ee Madagascar hayti 2007 marka xilligii salaadina way roogay marka ha kooban hadii Ilaahay Maxamed Cabdi Rasaaq waa shakhsi an qalab inuu soo qabado meel raayis ka madaxtinimada Soomaaliya mayna rajayaan inay soo ku guuleysay xilkan usuuna ma ilaahay ku toogana in lankii saadaalada maamul inuu noqdo nin shaqadiisa iyo aqoontiisa iyo firfircoonidiisa iyo Soomaalinimadiisa bay fiican tahay taariikh fiican Soomaaliya ku leh isku day badan oo siyaasadeedna hadda ka hor soo sameeyay runtii waqti dheer oo ku jirnay siyaasadda Maxamed Cabdi Rasaaq miisku saarnaa wax walba nasiib bay noqdaan isbedeladii badnaa oo jiray maalin walba wuxuu ahaa ninka afka lagu haayay ama prime minister ha noqoto ama madaxweyne ha noqoto waxa laga fikirayay Soomaalida inta fikirka fiican iyo inta fahamka fiican buu waxa la lahaa Maxamed Cabdi Rasaaq waa macquul prime minister ha laga dhigo madaxweyne ha laga dhigo Soomaalida waxa intaas loo lahaana waxa weeye waa wasiirka arrimaha gudaha iyo dawladaha hoose maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdiraxmaan Aadan Ibraahim Sati oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in musharax Maxamed Cabdi Rasaaq uu yahay nin u firfircoon qabashada xilka madaxtinimada Soomaaliya iyagana ay soo dhaweynayaan Koonfur Galbeed Soomaaliya anigoo ku hadlay magaceeda doorka Koonfur Galbeed Soomaaliya taageerada Maxamed Cabdi Rasaaq ee hayso waa mid aan qarsoodi ahayn oo dareemi kartaan sida asaga uu soo doortay inaan u soo dhaweynay annagana diyaar waxaan u nahay in sida uu asaga u jeclaystay inuu maartay ku soo bilaabo Koonfur Galbeed Soomaaliya gaar ahaan magaalada Baydhabo Maxamed Cabdi Rasaaq booqashadiisaas maanta halkaan uu ku yimid waa fariin oo u dirayo Koonfur Galbeed Soomaaliya musharax Maxamed Cabdi Rasaaq ayaa dhankiisa halkaasi ka hadlay isagoo sheegay in haddii ay suurto gasho in loo doorto xilka uu hanqal taagayo in Soomaaliya ku soo dabaali doono nabad iyo horumar maanta Soomaaliya waxay nooga baahan tahay hiilo Soomaaliya waxay u baahan tahay in anaga u hiilano hiiladeena ay Soomaaliya noo warsanayso waxa ugu horeeya laba qodob inta kale Soomaaliya aan siinayso dhulkaana u jeedaan aan siinayo dadkeena ku nool wadankan wuxuu naga rabaa laba waxyaabo mid koowaad inaan soo celino Soomaalinimo inaan soo celino isku kalsooni qodobka labaad oo nalaga rabo waa inaan la nimaano dawlad daacad ah oo caadil ah oo musuqmaasuq ka fog labadaas haddaan helno wax kaloo dhan waa wada qabsan karnaa Maxamed Cabdicasiis Salaad TV-ga Jaraad SBC Baydhabo